salaadan ciida maayarka xigeenka odayaha taliyaha qaybta saraakiisha kale bilayska isuduwayaasha oqaasha suldaanka saadiinta boqorka dhammaan sharafka goobta jooga rag iyo dumarba waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii hadal maanta badan ma jiro madax badan baa joogta waxaan doonayaa oo keliya inaan wax yar idinka iftiimiyo maalin dhaweyd waxaanu anigu wafdigan ka mid ahaa u tagay dalka injaarkana Ethiopia waxaanu shir ku galay magaalada Dirirrabe halkaasoo labada dawladood oo maaragtay federaalka iyo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Somaliland ay ku wada saxdeen heshiis ka hadlaya dhinacyo badan. runtii heshiiska waxaa muhiim ah doonayaa inaan xog idinka siiyo maadaama gobolkani uu xuduud wanaagsan oo xuduud dheer la leeyahay dalka Ethiopia waxa ugu muhiimsan waa ammaanka in cid dhibaataynaysa labada dawladood aanay dhinacna joogin ayaa ugu muhiimsanayd in dadka shacabka ah ee walaalaha ah ee mar walba ay dib ka soo gaadho ama ciidamada maaragtay amniga sugaya Somaliland ama kuwa amniga sugaya dawlad deegaanka Soomaalidana aan la dhibaatayn oo la ilaaliyo karamkooda iyo sharaftooda. taana waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo gaarnay in maaragtay shacabka Somaliland ama gobolkan u dhasho ama gobol kasta u dhashay aan kiilka lagu dhibaatayn in qof u dhashay kiilka ama dawladda maaragtay federaalka aan jaarkanayna aan Somaliland lagu dhibaatayn. runtii waxaan amrayaa taliyaha qaybta iyo taliyayaasha ciidamada deegaanka in aan dadka maaragtay la ilaaliyo la dhowro laakiin lagu ilaaliyo sharciga markasta aan sharciga la ilaaliyo oo si sharci ah ay ku soo galaan dalka si sharci ah ay naga tagaan laakiin aan la dhibaateyn oo la ilaaliyo sharaftooda sidaas la mid ahna maaragtay waxa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ilaalin doontaa shacbigeena. mid labaad waxyaabaha ka soo wada hadal waxaa ka mid ah in cid maaragtay hubaysani aan dhinac joog karin gobolkeena cid dhibaato ku wada Soomaaliland dalka ay jaarkana ay joogin iyagana saasaan rajaynaynaa dhinacooda inay soo yeriyaan cid kastoo Somaliland dib ku haysa. runtii heshiis wanaagsan buu ah heshiis wax badan oo saafgar wanaagsan in dawlad deegaanka waliba khaasatan soo wada galay buu ahaa. waxaan rajaynayaa labada dhinac inaynu ilaalino isu socodka labada dhinac dadka reer guuraagi kuma jiraan dadka reer guuraaga xoolahoodu way sii socon karaan soo socon karaan marka ay roobka daba socdaan laakiin wixii ganacsi ah waynu iska ilaalinaynaa waxyaabaha qaar aad baynu iskaga ilaalinaynaa waynu ka digtoonaanaynaa cidii dhibaato gaadhana waxay la soo xiriiraysaa maamulkooda waxaa la abuuray guddi farsamo oo ay barasaabadu ku jiraan barasaab walba wuxuu la shaqeynayaa barasaab kale dhinaciisa maayar walbana wuxuu la shaqeynayaa maayar walba oo dhinaciisa marka waxaan rajaynaynaa cidii ay maaragtay dhibaato maaragtay tirsanaysaa qalooc tirsanaysaa intaanay maaragtay fal qaadin waxaa muhiim ah inay maamulkooda la soo xidhaan annaga idin maaragtay fududeyn doonaa haddii ay dhibaato jirto insha Allah mana jiri doonto intaanu joognayn waxaan ku guulaysanay dhowr dhalinyaro xidhnaan soo dayno taas waa halkaan kaga baxayaa. tan labaad runtii gobolkeen maanta aad buu wanaagsan yahay nabadgelyadiisa aad buu wanaagsan tahay horumarkiisuna aad buu wanaagsan yahay wax dhibaato ah oo ka jira ma jiraan. waxaan isku dardaaraya sida maayarku sheegay inaynu ka wada shaqeyno horumarka laga wada shaqeeyo iminka goobaha soo madaxnaalkii deerar wadooyin ku jira waa runtii habeenkii baa la dhisayaa taana waxaan rajaynayaa inuu gacan bira ku qabto maayar inaad waxa tanaasula u samayn cidii gudaha usoo gasha ama deer samayso wadada gelaya waa qaadic dariiq banu arkeena waa in xoog in la baabi'iyo weeye taasina waxa weeye waa go'aan dawladeed dawladnimadeena naga jecelaatan maaha nabadgelyadana inaynu gacan bira ku qabanno adkeyno weeye. halkaasaan kaga baxayaa waxaan kusoo dhaweyn doonaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo wasiirada isku soo dhaweyn doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.